أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. خالد بن الوليد waxaa uu ciidanka ka dhex buuxiyey abubakar asidiiq saxaabada raggoodii ugu magaca dheeraa oo uu ka mid ahaa saxaabigan haddaanu ka sheekaynayno albaraa ibnu malik al ansaari iyo koox fara badan oo magac weyn ku lahaa saxaabada dhexdooda ayaa dagaalkaas ku jiray. haddaba ciidankii gaalada iyo ciidankii muslimiinta waxa ay ku kulmeen dhulkii la odhan jiray yamaama. wakti yar markii la joogay waxa guushii ay dagaalkaa ku raacday ninkii nabinimada sheegtay ee beenaalaha ahaa ee la odhan jiray musaylima. mar labaad ayaa muslimiintii dagaalkaa lagu soo jebiyey ilaa heer waxay gaareen nimankii taageerahayay musaylima ay hoggaamiyihii muslimiinta xaaskiisii inay dilaan ay khatar geliyeen. muslimiintu waxay dareemeen khatar weyn inay ku soo fool leedahay haddii mar saddexaad musaylima uu dagaalka muslimiinta ku jebiyo. waxay dareemeen ninkani haddii mar saddexaad uu guulaysto inuu muslimiinta dhan uu gumaysi gelinahayo cagta hoosteedana uu ku riixahayo. khaalid ibnulwaliid ayaa ciidankiisii isku shaandheeyey nidaam cusub ayuuna u sameeyey ciidankii. khaalid wuxuu kala soocay dadkii muhaajiriinta ahaa iyo ansaartii, wuxuu kala soocay dadkii baadiyaha ka soo dagaal tegey iyo dadkii magaalada ka soo dagaal tegey. qolaba dhinac ayuu u kala wareejiyey khaalid ibnulwaliid. wuxuu yidhi bal meesha jabku nooga yimaado ayaan garanahayo, bal inuu jabku ka imanahayo dhinaca ansaarta iyo inuu jabku ka imanahayo dhinaca muhaajiriinta, inuu jabku nooga imanahayo dadka baadiyaha ka soo dagaal tegey, inuu jabku nooga imanahayo dadka magaalada ka soo dagaal tegey. bal horta dhibku meeshuu nooga imanahayo fulaynimada haddaan arkahayaa buu yidhi hala kala baxo ciidanka. dagaalkii sidaas ayaa lagu galay. waxaana halkaa dhex maray musaylime iyo muslimiintii dagaal aada u qaraar oo labada dhinacba ay ku hoobteen. waxay muujiyeen ciidamadii musaylime uu hoggaaminahayay geesinimo xad dhaaf leh. muslimiintuna waxay muujiyeen waxyaalo khawaariqulcaadaada oo muslimiinta hore aan looga baran oo geesinimo ah. tusaalooyin shakhsiyaadkii caanka ahaa oo dagaalkaa magaca weyn ku yeeshay geesinimada xad dhaafka ahna muujiyey waxaa ka mid ahaa saxaabigii la odhan jiray thaabit ibnu qays ayaa ka mid ahaa. thaabit ibnu qays wuxuu sameeyey karfan ayuu isku duuduubay, godna wuu qotay. markaasuu godkii ilaa jilbaha ilaa shanshada intuu godkii ku ritay ayuu halkaa hubkiisa la fadhiistay oo wuxuu yidhi haddii lay dilana karfantaydiina waan wataa, haddii godkan hoosteeda ka qodanna qabri baan ka dhiganoo waaba ku seexanba waan ku dhici buu yidhi haddii lay dilo. halkaas ayuu siduu uga dagaalamayay thaabit ibnu qays ayaa halkaas lagu dilay thaabit. waxaa ka mid ahaa shakhsiyaadkii caanka ahaa ee dagaalkaa guusha weyn ka soo hooyey iyo geesinimada xaddhaafkana muujiyey cumar ibnu lkhadaab walaalkii oo la odhan jiray zayd ibnu lkhadaab. zayd ibnu lkhadaab muslimiintii ayuu ku dhex dhawaaqay. markaasuu yidhi dadow gowsaha ha laysku qabto, cadowgiina hore ugu sii durka, hore ugu sii socda ayuu ku yidhi. wuxuu yidhi dadkanow wallahi inaanan hadlaynin eraygan ka bacdi ilaa musaylime laga jebiyo. zayd ibnu lkhadaab ayaa cadowgii gaalada ku rogaal celiyey ilaa isagana laga dilay oo meeshii uu ku shahiidoobay. waxaa ka mid ahaa ragga geesinimada muujiyey ninkii la odhan jiray saalim oo abi xudayfe addoonkiisa ahaa. saalim wuxuu qaatay calankii muhaajiriinta. dadana waxay ku yidhaaheen amaad jabtaa ood naxdaa. saalimow wuxuu yidhi markaas innaa lanakhshaa an nu'taa min qibalik ayay ku yidhaaheen. saalimo waxaan ka baqaynaa inaad cabsato oo jabku dhinacaaga nooga yimaado. saalim ayaa ku jawaabay oo yidhi haddii dhinacayga laydinkaga kin yimaado nin qur-aan xambaarsan oo baas leh ayaanba ahay buu yidhi haddii jabku dhinacayga ka yimaado. war anigoo qur-aanka aqaana sidee gaala ii jebinaysaa ayuu yidhi saalim. laakiin shakhsiyaadkan caamka ah markii la hor dhigo
geesinimadii uu muujiyey baraa ibnu malik alansaari waxaasi waxba noqon maayaan. khaalid ibnulwaliid markuu arkay dagaalku inuu aada u sii qaraaraaday ayuu markaa wuxuu la hadlay baraa, wuxuu yidhi baraa-ow bal dadka wacdi oo ku tirtirsii inay dadku ay aada u dagaalamaan. baraa ayaa qoomkii uu ka dhashay la hadlay oo wuxuu yidhi axad adinka idinka mid ihi yuusan ku fekerin in magaaladii dib uu ugu laabto. magaala ma jirto, meeshan waxaana hor yaalla ilaahay ridihiisa inaanu raadinno iyo janno bis, walla inaan guryo dib loogu laabanaynin ninka nabinimada sheegtay ilaa laga jebiyo ayuu yidhi baraa. baraa safkii gaalada ayuu isku dhex maqiiqay, waan aad ayaana loo riixay nimankii gaalada ahaa ee musaylima uu hogaaminayay. waxayna dib ugu gurteen musaylima beertii la odhan jiray xadiiqatulmowt ayay ku aruureen gaaladii. beertaas ayayna dhufays ka galeen, albaab weyn oo derbi ahoo beertu ay laheedna albaabkiina way isku xidheen, halkaasina fallaaro la fulfuleen derbiyadii beerta. markaas ayaa baraa ibnu malik alansaari wuxuu yidhi war nimankani beertii ayay naga galeen, albaabkiina way soo xirteene gaashaan ayaan ku fadhiisanahayaa buu yidhi, gaalada dhexdooda igu tuura, derbiga intay iga tuurtaan gaalada dhex bartankooda igu tuura buu yidhi. laba mid ayay noqon buu yidhi, inay idilaan iyo inaan albaabka idinka furo si aad beerta usoo gashaan oo meesha ugu laysaan, ha laygu dhex tuura buu yidhi gaalada dhexdooda. ilbiriqsi ayaa baraa ibnu malik wuxuu ku fadhiistay gaashaankii, nin aada u caato badanna wuu ahaa. gaashaankii inta sidaa loogu qabtay ayaa lagu tuuray beertii gaaladu ay isku xirtay, dhexdeeda shab lagu siiyey baraa. markii uu ku soo dhex dhacay gaaladii waxay huwiyeen baraa seef iyo dhagxaan iyo fallaar ayay huwiyeen, isaguna seeftiisii ayuu isticmaalay oo wixii dhinaciisa ka yimaadaba oo soo aadaba seefta ayuu qudha uga jaraa ilaa uu 10 ka dilay gaaladii baraa. isagana waxaa la gaarsiiyey dhaawac aad u fara badnaa, 80 iyo dhowr meelood ayaa laga dhaawacay baraa. wuxuuna si xoog leh uu ku furay albaabkii beerta oo gaalada u xirnaa ayuu ballaqay. halkaas ayaa dadkii muslimiinta ahaa si waxay ugu yimaadeen xawli ah ayay ugu soo daateen beertii gudahoodii. markii gaaladii beerta loo soo dhex galay ayaa waxaa laga laayay gaaladii ku dhowaad 20,000 oo shaksi ayaa meeshaa looga dilay nimankii gaalada ahaa. muslimiintii waxay raadiyeen ninkii gaalada hogaaminayey nabinimadana sheegtay ee la odhan jiray baraa ibnu malik, ninkii la odhan jiray musaylima alkadaab ee nabinimada sheegtay ayay raadiyeen. musaylima halkaas ayaa isagana lagu khaarijiyey oo eber looga dhigayo, waa la khaarijiyey, isagana waa la dilay. dagaalkaas qaraar ayuu ku dhintay ninkii nabinimada sheegtay. haddaba saxaabigeennan walaalayaal baraa ibnu malik alansaari oo 80 iyo dhowr meelood ka dhaawacan ayaa meeshii laga qaaday oo kor loo qaaday si loo soo daaweeyo. hogaamiyihii muslimiinta khaalid ibnulwaliid ayaa hal bil dul taagnaa isagoo daaweynayey, maadaama ninkaasi uu yahay ninkii guusha soo hooyey. baraa markii bil la daaweynayey ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad ayuu u soo dejiyey. baraa ibnu malik alansaari ayaa muddo dheer waxa uu haminayey, rajaynayana inuu maaragtaahay shahiidnimo rabbi uu gaarsiiyo subxaanahu wa tacaala oo uu shahiid noqdo ayuu muddo dheer uu rajaynayey. dagaalba dagaalka ka dambeeya ayuu maaragtaahay galaa si uu maaragtaahay shahiidnimo uu u helo. ilaa wuxuu galay dagaalkii ka dhacay magaaladii la odhan jiray tustur oo ka mid ahaa bilaadu faris. nimankii farisiinta gaalada ahaa dagaal qaraar oo uu la galay saxaabigeennan baraa ibnu malik alansaari ayaa gaaladaasi waxay sameeyeen derbiyo ayay intay ku aruureen ayay derbigii waxay ka soo laalaadiyeen silsilado ay dab ku kululeeyeen oo ay ula jeedaan qofkii derbiga soo ful is yidhaahaba silsiladaasi ha qabsato oo adinkuna sidii ceel oo kale ugu soo shuba si aad beerta derbiga usoo gashataan ood u dishaan. haddaba anas ibnu malik oo walaalkii ah baraa ayaa wuxuu is yidhi isagu